بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناقصن إذا الكيمبا هل كان يوا مجن ميديا أنا ونوحنا عبد القادر محمد صورة قلنا إن دلالك إثيوبيا يسدو كلا دلك إريتريا أي دجالمان ayaa marba marka sii dambaysa sii kordhaysa iyadoo labada dawladood markaan ay isu diyaarinayaan in midba midka kale hadii weerar uu ku soo qaado ay diyaar garow xoogan markaasi kala hortagto dawladda uu hogaamiyo siyaasa farq oo iyadu hadda midda difaaca ku jirta dekadaheeda ama xeebaheedana lagu sii jeedo oo Abiy Ahmed uu doonayo inuu qabsado ayaa mudooyinka u dambeysaba waxay ku jirtay diyaar garow ballaaran oo ay markaas ku raadsanayso hadii dagaalkaasi qarxo inay ku hesho taageero dalkeeda ka baxsan wadamada geeska Afrika iyo sidoo kale wadamada qaliijka ayaana la tilmaamay in siyaasa farqa uu dawladdiisa uga helay taageero iyo hadii dagaalkaasi qarxo inay taageerayaan wadamada ay hogaaminayaan Sacuudiga iyo sidoo kale dawladda Masar ayaa dhinaca kale waxa la sheegay inay xiriir wanaagsan oo dhanka iskaashiga militariga ay la gaareen dawladda siyaasa farqa dhinaca kale warbixinaanu helayna ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in dawladda Iran ay hadda tahay mid si cad u muujisay inay markaas garab taagan tahay Eritrea iyo siyaasa farq labadii maalmood ee la soo dhaafayna garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada xeebta ku taala ee Masawa inay halkaas geysay hubka noocyadiisa kala gedsan oo ay ku jiraan diyaaradaha ay dawladda Iran markaas ay farsamayso ee loo yaqaan Shahid kuwaas oo la tilmaamay inay yihiin kuwa khatar ah oo raadarada kala gedsan markaas ka dhuuman kara sida warbixino soo baxay lagu sheegay Abiy Ahmed iyo dawladdiisu dhinaca kale iyaguna waa isdiyaarinayaan waxayna heshiis military la gaarayaan dalal dhowr ah oo ay kamid yihiin dalka Ruushka iyo sidoo kale dalka Azerbaijan oo dhawaan sheegay inuu dawladda Ethiopia dhinaca ciidamada uu ka taageeri doono kuwaas oo si cad u sheegay inay hubka ay dawladda Azerbaijan soo saarto markaas ciidamada Ethiopia lagu qalabayn doono Masar iyo sidoo kale Sacuudiga iyo dawladaha Suudaan oo dhinacana waxay taageerayaan oo Iran ay ku jirtana waxay taageerayaan farqi dawladda Turkiga iyo Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Israel la sheegay inay ku jirtana waxay jiraan ayaa la yiri dhinaca dalka Ethiopia haddaba marba markaas dambaysa in dagaalka loo sii dhawaanayo ayaa xiisadaha laga iyo wararka laga qorayo ay muujinayaan warbixinteena saaxiibayaal waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisada labada dawladood ee Ethiopia laga qoray iyo sidoo kale hadaladii markaas ay labada dawladood mudooyinka ugu dambeysaba ay isdhaafsanayeen warbixinta BBC-da qaybta afka xabashiga ayaa waxa ay maanta qoraysaa suurtagalnimada dagaalka dhex mari kara Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea waxaana la tilmaamay in markaan Abiy Ahmed iyo siyaasa farqi ay garoomada ama goobaha lagu dagaalo iyo furimaha ay isku arki doonaan soo dhawaada saaxiibayaal akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee warbaahinta ay ka qoreen dagaalada Ethiopia iyo Eritrea ayaan saaxiibayaal halkan idin kula wadaagi doonaa inagu soo bir oo barteena YouTube-ka Magan Media subscribe ku samee sidoo kale soo follow garee barta aan Facebook ku leenahay ee isla Magan Media halkaas oo akhbaaraadka Soomaaliland aan kula wadaagno taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 22ka bisha November sanada 2025 waa hagaag aynu ku bilownay dawladaha Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia mudooyinkii u dambeysaba xiisadoodu marba markasi dambaysa cirka ay isku shareereysay waxaana hadda la leeyahay suurtagalnimada in labada dawladood mar kale uu dagaal dhex maro ayaa muuqanaysa marka loo fiiriyo diyaar garowga xoogan ee ay ciidamada militariga Ethiopia iyo sidoo kale kuwa dawladda Eritrea ay sameynayaan iyo hadalada labada dhinac ee militariga dalkaasi hogaankooda ah ka soo yeeraya ayaa sidoo kale la tilmaamay inay markaas xiisada u sii dhaweynayaan in xadka u dhaxeeya labada dawladood ee Eritrea iyo Ethiopia ay dagaalamaan dhawaanaanba waxa daawanayseen muuqaalo kala gedsan oo markaas ciidamada Ethiopia hogaankoodu ay si isku mid ah u sheeganayaan inay doonayaan inay qabsadaan dekada Asab iyaguna ay hore u lahaayeen sidoo kalena ay doonayaan inay dib u soo ceshtaan hadda waxa bilaabatay in ciidamada dalka Eritrea hogaankoodu iyaguna si cad u sheegaan oo ay u jawaabaan kuwa Ethiopia oo ay leeyihiin Asab waxay ka tirsan tahay Eritrea xornimadeedana annaga ayaa u dhimanayna soo socda ciidamada Eritrea ciidamada Ethiopia iyo Abiy Ahmedow idinkoo iswataba imaada ayay leeyihiin haddaba saaxiibayaal warbixinadii ugu dambeeyay ayo sidoo kale wararkii laga qoray toddobaadadii la soo dhaafay warbixinada iyo dagaalka laga cabsi qabo inuu geeska Afrika iyo dalalkan Ethiopia markaas Eritrea oo darisa marna hal dal isku ahaan jira dhex maro hadalada iyo bayaanada ay bixinayaan madaxda Ethiopia iyo Eritrea
waxaa ka buuxa ayaa la yidhi erayo kulkulul oo issoo taraya kuwaasoo khuburada ama khuburo badani ay ku tilmaameen kuwo horseedi kara in labada dowladood ama labada dal colaad cusubi markaasi ay u dhaqaaqaan ama ay dhex marto kadib markii Ethiopia ay mar kale soo qaaday dalabkeeda ku saabsan inay hesho marin badeed ay iyadu leedahay waxa ay soo taraya wararka kor u sii kacaya ee markaasi sheegaya ama walaaca laga baqayo inuu dagaal uu ka qarxo dowladaha dariska ah ee Eritrea iyo Ethiopia ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa mar sii horeysay waxa uu arintan marin badeedka Ethiopia ay doonayso ku tilmaamay arin nololeed oo muhiim u ah dalka Ethiopia waxaana si cad u sheegay inay dawladdiisu marnaba aysan ka waaqanaynin sidii ay ku helayd mid ka mid ah dekedaha ku yaala baddaas waxaase dhawaan taliyaha ciidamada difaaca ee Ethiopia ninka lagu magacaabo Field Marshal Birhanu Julla uu si cad u sheegay in Ethiopia marin badeed ay heli doonto si kasta oo ay ku qaadato haddii ay ku heli karto nabadna ayba soo dhaweynayso haddii ay ku weydana markaasi ay dagaalba ku qaadi karto taasi waxa la leeyahay waxay cirka ku sii shareertay dagaalka iyo diyaar garowga ay labada dawladood markaas sameynayaan dekada Casab oo ku taala dalka Eritrea oo Ethiopia si dhow markaas ula socoto xadka dalka Ethiopia u dhow ayaa waxa la sheegay inay xadka dawladda Ethiopia u jirto 60 kilomitir oo kaliya waana halka ay dawladda Ethiopia leedahay malaha haddii aad dagaal hal isbuuc ama dhowr maalmood aad sii wado lug baad ku gaari kartaa haddii aad gaadhana cid ka bixin karta ma jirto ayay Ethiopiaanku isleeyihiin Eritrea waxay madax banaanideeda ka heshay dalka Ethiopia 1993 wixii intaas ka dambeeyay Ethiopia waxa ay noqotay dal aan lahayn marin badeed maadaama dalka Eritrea markaasi uu badihii Ethiopia ay hore u lahayd oo dhan dhinaceeda ay mareen labada dal waxay dagaalameen intii u dhaxaysay 1998 iyo sidoo kale 2000 halkaasi oo dagaalkii lagu magacaabi jiray Baadhama uu markaasi sababay in qasaare aad u ballaaran la diiwaan galiyo in ka badan 100,000 oo qof ayaana la tilmaamay dagaalka labada sano socday inuu labada dhinac kaga dhintay kadib muddo dheer oo xiisada labada dawladood markaasi ay xumayd ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia markii uu xukunka la wareegay 2018 isaga iyo madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Farqi dadaal wada nabadeed ayaa dhexmaray iyadoona madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Farqi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed midba mar uu booqday magaalada caasimada u ah dalkaasi Siyaas ayaa lagu soo dhaweeyay Addis Ababa sidoo kale Abiy Ahmed ayaa gaaray magaalada Asmara ee caasimada u ah dalkaasi waxayna xiisadaasi noqotay in Abiy Ahmed uu ku guuleysto bilada nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize loo yaqaano taas oo la sheegay in hadda lagu la qaldamay marka loo fiiriyo xiisada colaadeed iyo dagaalada gudaha ee markaas dalka Ethiopia uu hore galay Abiy Ahmed markasta waxa uu si cad u sheegaa in dekada Casab ay tahay meesha ay nolosha Ethiopiaanku inay barwaaqo gooraan ay ku xiran tahay horaantii sanadkan aynu ku guda jirno Abiy Ahmed waxa uu sheegay inay khalad ahayd in dawladda Ethiopia ay ogolaato in Eritrea ay madax banaani ka hesho inteeda kale waxa uu tilmaamay in arintaasi ay keentay khalad markaasi ay dawladihii hore ay hore u galeen iyaga iyo sidoo kale dawladdiisuna ay doonayaan inay arintaas saxan safaaradda Ethiopia ee dalka Kenya ay ku leedahay ninka safiirka ka ah horay sida halkan ba ka daawateen isaguna waxa uu sheegay in markaasi aysan baahayn su'aashu taagnayn dekada Casab yaalaba aysan taagnayn ay tahay buu yiri in markaasi sidii aan ku soo celin lahayn aanu ka fikirayna ayuu yiri ninka generaalka ah ee lagu magacaabo Becha Debala kaasi oo horay ciidamada militariga ee dalka Ethiopia u soo hogaamiyay sidoo kalena lagu eedeeyo inuu ahaa shakhsiga ka dambeeyay inuu xasuuq ballaaran ka dhaco gudaha deegaanka Tigreega xilligii TPLF iyo markaas dawladda Ethiopia ay dagaalamayeen bishii aynu soo dhaafnay September ee sanadan aynu ku guda jirno ninka ciidamada militariga hogaamiya dalka Ethiopia Birhanu Julla waxa uu saraakiisha ciidanka u sheegay in ciidamada militariga Ethiopia ay garaaci doonaan meel kasta oo loo baahdo sidoo kalena ay wajihi karaan dalalka dariska haddii Ethiopia markaasi ay weydo barinbadeed hadalkaas oo si kale uu ugu tilmaamay dalka Eritrea waxa uu yiri dalka Ethiopia hadda waxa uu marayaa 130 milyan oo qof 25 sano marka la gaarana waxay u badan tahay inuu 200 milyan gaaro 200 milyan markaasi bad la'aan ma noqon karaan ayuu yiri 2
milyan oo qof oo Eritrean hadalkaas xiisadda ayuu kor markaas u sii kiciyay waxayna timiday in dawladda wadanka Eritrea ay hadalkaas ku sheegto inuu yahay mid aad iyo aad u culus general kale oo isagana lagu magacaabo Tesfom oo ka tirsan ciidamada diblomaasiyadda militariga ee Ethiopia waxa uu mar uu ka hadlayay arinta casab ku sheegay in casab ay tahay mid kamida waxyaabaha ay dhaxalka u leeyihiin dadka Ethiopiaanka qiimo kastana ay u bixin doonaan sidii ay mar kale dib ugu soo ceshan lahaayeen General Desta Pecha oo isaguna ah madaxa injineeriyadda difaaca Ethiopia ee militariga dalkaasi ayaa sheegay in maalin kasta loo sii dhawaanayo hawsha lagu doonayo in Ethiopia ay marinbadeed markaas iyadu ay leedahay ay qabsato waxa uu yiri hawshan waa inaynu yeelanaa awood iyo isku haleyn cusub si aynu markaas u fulino go'aanka dawladda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed arintaas dawladda Eritrea marar kala gedsan ayay ka jawaabtay jawaabaheedu iyadana way cadaayeen ciidamada militariguna hadda ayay ku soo biireen oo waxa ay leeyihiin annaga ayaa difaaci doona waxaa la yiri in kastoo Ethiopia marar badan ay ku celcelisay rabitaankeeda marinbadeedka haddana dawladda Eritrea waxa ay jawaabaheeda inteeda badan lagu soo koobaa ama lagu soo gudbiyaa qoraallo markaas wasiirka warfaafinta ninka lagu magacaabo Yemane Gabramaskal uu ku baahiyo barta uu ka leeyahay X horena Twitter loo oran jiray halkaas oo hadda noqotay isha kaliya ee wararka markaas dalka Eritrea ee dagaalka ama xiisadda Ethiopia iyo dalkooda ka dhaxaysa lagala socdo wasiirka wasaaradda warfaafinta dalka Eritrea oo ah afayeenka madaxweynaha dalkaasi Siyaas Farqi marar badan waxa uu tilmaamay in hadallada dalka Ethiopia ka soo yeeray ay yihiin kuwa halis weyn leh waxa uu ku nuuxnuuxsaday in ajanda sumaysan oo markaas wax ka bedelay xuduudda labada dawladood u dhaxaysa ay Ethiopia ka shaqeynayso arintaasna ay markasta u joogaan difaaceeda bishii September ee aynu soo dhaafnay wasiirku waxa uu dhaqdhaqaaqa Ethiopia ku sheegay weerar cad oo dawladda Ethiopia ay ku qaadayso dalka Eritrea waxa uu si cad markaas u tilmaamay in dawladdiisu ay la socoto falalka markaas ay ciidamada militariga Ethiopia ay sameynayaan ciidamada difaaca Eritrea oo aan badana wax ka hadlin arrimahan xiisadda ayaa horaantii bishan aynu hadda ku guda jirno ee November waxa ay ka digeen in hogaamiyaasha Ethiopia ay joojiyaan kicinta shacabka iyagoo tilmaamay in xadka labada dawladood u dhaxaysa aan mar kale loo horseedin qallaaso waxayna sheegeen haddii ay dhacaan in dagaalo mar kale ay dhacdo inaysan iyagu laftirkooda dhinacooda caana qabo laga cabi doonin oo ay u diyaarsan yihiin dagaal kasta oo markaas dalkooda lagu soo qaado lama hayo war rasmi oo muujinaya dhaqdhaqaaqyo military oo waaweyn oo ka socda goobaha labada dawladood u dhaxeeya si gaar ah xadka Eritrea iyo Ethiopia ay kala wadaagaan deegaanka Anfarta hase yeeshee waxa la yiri telefishinka qaranka Ethiopia ee loo yaqaan ETV ayaa marar badan waxa uu baahinayaa kumanaan askar oo cusub oo tababar loo soo xiray kuwaas oo sidoo kale la sheegay in la geenayo xadka labada dawladood u dhaxaysa taliyaha ciidamada difaaca ee qaybta shaqaalaha ee dalka Ethiopia ninka lagu magacaabo Hachalu Salema waxa uu waraysi u bixiyay ku sheegay in ciidankoodu uu ku jiro heer diyaar garow oo sare sidoo kalena kii ugu dambeeyay waxa uu yiri kumanaan dhalinyaro ah ayaa ku soo biiray muddooyinka ugu dambeysay ciidamada kala gidsan taas oo aan fursad siin doonin ayuu yiri cadowga horaantii sanadkan saraakiil sarsare oo militariga Ethiopia ka tirsan oo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed magacaabay ayaa madaxweynaha dalkaasi ninka lagu magacaabo Taye Atskasalaase waxa uu dalacsiin u sameeyay markaas askartaasi kuwaas oo la sheegay inay qayb ka noqon doonaan militariga ugu sareeya iyo dagaalka Ethiopia doonayso inay ku qaado Eritrea warbaahinta Eritrea ayaa iyadu inteeda badan markaasi aan ku milnayn siyaasadaha isdiidan ee dalka Ethiopia iyo Eritrea u dhaxaysa marka laga yimaado TV-ga qaranka warbaahinta dawladda Ethiopia waxay sidoo kale xoog uga shaqeysaa iyadu inay markaasi ay arrimahaas aad ugu lug yeelato marka loo fiiriyo tan Eritrea warbaahinta dawladda Eritrea gaar ahaan Eritrea TV waxay si joogto ah iyaguna u dhaleeceeyaan Ethiopia iyagoo leh Ethiopia waxay dib u horinaysaa arin 20 sano ka hor la xaliyay si ay u marin habaabiso caalamka bishii October aynu soo dhaafnay warbixin uu sii daayay TV-ga qaranka Eritrea ayaa dawladda Ethiopia lagu eedeeyay inay isku dayayso inay dib mar kale colaad uga horiso labada dawladood kuwaas oo 1998 labadaas sano intii u dhaxaysay dagaal xun u maray golaha warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaa waxay sidoo kale iyaguna sheegeen inaysan mas'uuliyad ka ahayn
qalalaasaha Ethiopia iyadoo abuurayso waxayna leeyihiin annagu kaliya difaac ayaan u taaganahay ee uma taagnin inaanu Ethiopia weeraro inkasta oo colaadii gobolka Tigray ay soo dhamaatay sanadii 2020 kadib heshiiskii Pretoria ka dhacay dalka Ethiopia waxa wali ka jira dagaalo gudaha dalkaas ka sii socda jabadaha markaas Ethiopia ka dhaqdhaqaaqa ee faano iyo sidoo kale tan oramada ee ola ayaana markaas ciidamada dawladda kula jira dagaalo markaas qaraar waxa la leeyahay TPLF dagaalkeedu mar kale haduu Ethiopia iyo iyaga uu qarxo Eritrea dagaalkaasi waxay ku soo biiri doontaa iyadoo caawinaysa markaas ciidamada TPLF arintaas hadii ay dhacdana waxa la leeyahay waxa imaanaysa in halkaas uu ka qarxo dagaalka u dhaxeeya labada dawladood ee Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia waxa la yiri deegaanka Canfarta dhawaan ayay TPLF soo weerartay halkaas oo la sheegay in ciidamada dawladda taageersan oo jabhadaha markaas lagu diyaarinayo kuwaas oo ay dawladdu u qorsheynaysay inay ka hortagaan dagaalada ama markaas isdiyaarinta ballaaran ee TPLF ciidamadeedu muddooyinkii u dambeysayba ay ku sameeysay weerarada kala gadsan ee TPLF deegaanka Canfarta ay ku soo qaaday waxa si cad uga hor yimiday hogaamiyaasha deegaankaasi Canfarta oo ku tilmaamay in TPLF gobolkooda ay soo weerareen sidoo kale Getachew Reda oo ka soo goostay dhinaca TPLF ayaa isaguna waxa aan la aqbali karin arintaas ku tilmaamay taas oo keentay in labada dhinacba ay markaasi mindi ku taagay noqoto dawladda Abiy Ahmed ciidamadooda cirku waxa ay duqeymo ka sameeyeen goobo markaasi ay ku sugnaayeen ciidamada TPLF oo u dhaxaysa xadka labada deegaan ee Tigrayga iyo sidoo kale kan Canfarta kala qaybisa arintaas oo iyadana la tilmaamay inay wax weyn ka bedeshay xiisada gobolka u dhaxaysa oo dhinaca dagaalka in loo sii siqayo markaasi keentay waxa la yiri hadii dagaal kale uu dhex qarxo ama uu ka dhex qarxo Tigray iyo sidoo kale dawladda federaalka qatarta ah in Ethiopia iyo Eritrea ay mar kale dagaalka ku lug yeeshaan ama uu dagaal u dhex maro aad iyo aad ay u sii kordhaysa ayaa la yiri xukuumadda Addis Ababa ayaa ku eedeysay Eritrea inay taageerto xoog hubeysan ee dawladda Ethiopia mucaaradku sida TPLF faano iyo sidoo kale jabhadda oramada ee ola loo yaqaano inkastoo ay dawladda Eritrea iyadoo arintaas inaysan waxba ka jirin ay marsi horeysaba sheegtay saaxiibayaal waxa muuqata in xiisadu ay marba mar ka sii dambaysa dagaal u dhawaanayso marka loo fiiriyo ficilada ay dawladda Ethiopia sameynayso casab inay iyadu leedahay ay sheeganayaan inay dib u soo ceshanayaan waa wax uu Abiy Ahmed uu ballan qaaday ciidamada militariga Ethiopia mar kale gedsan waxa ay sheegteen inay u diyaarsan yihiin dagaal kasto ay Ethiopia qaado arintaas oo iyadana walaa cirka ku sii shareertay intaas ayaan saaxiibayaal warbixintana ku soo gabagabeynaya waad ku mahadsantiin la socodka barnaamijyadeena Magan Media ku soo biir si aad ula socoto akhbaaraadka ugu dambeeyay ee halkan si maalinle ugu soo gudbino hadii aad hore noola joogteena muuqaalkan la garay sidoo kale si share garay si uu meel dheer u gaaro intaan kulmi doona muuqaalkeena xiga sidaas iyo nabadgelyo